arrimaha bulshada Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata mar kale wuxuu dibadda soo dhigay isla mar ahaantaana faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay weeraro uu sheegay inuu si khaas ah ugu qaaday gurigiisa wasiirka cusub ee shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waa sida uu hadalka u dhigay waxay daba joogtaa tani yani talaabooyin ka horeeyay oo muxuu gurigeygii anigoo ka soo maqan oo muxuu boorama jooga gurigeygii Hargeysa yani maartay wasiirka ninkaas muxuu wasiirkii muxuu ciidan u diray oo baabuurkii muxuu yani maartay wasaaradda oo halka yaalay oo muxuu la jajabiyay xoog lagu qaaday sidii yani laga dhigay sidii wax baabuur lala baxsaday oo kale waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliland iyo xukuumadda muxuu ninkaas 6 cisho magaxoodayba waxaan u sheegayaa in muxuu anigu aanan ahayn nin yani maartay baabuur iyo يعني محو بحثي يعني صفر نوع عاسة لو تلمامو أنا قمي جامع حسين جامع ضد زمالي كيبل تي في xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa waxay sheegeen in loo diiday mushaarkoodii wariyaheena magaalada Baydhabo Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa warkan inoo soo diray iyadoo maalmihii ugu dambeysay xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ay wadeen mooshin ka dhan ah madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa haddana maanta kulan ay ku yeesheen xildhibaanada magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen in mushaaraadka ay lahaayeen loogu xiray inay ka laabtaan mooshinka ay ka wadaan madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo oo ka hadlaya arinka galabtan waxaan meeshan isugu nimid in aan ka hadalno wax aan weli Soomaaliya hore uga dhicin baarlamaanka federaalka ama baarlamaanadii ku meel gaarka la soo mari jiray kuwii maamul goboleedyada aan hore loo arag taasoo ah in gudoonkii baarlamaanka koonfur galbeed xilkoodii uu Shariif Xasan jeebku uu gashto wuxuuna sameeyay maanta ka dhacday magaalada Baydhabo xildhibaanada yar oo asaga raacsan in lacagii mushaaraadka oo anaga naga maqnaa inuu 3 bilood akawnadooda ku rido xildhibaanadii kale uu ku qasbo uu ku dhaho ka noqo mooshinka warqadan saxiix hadii kale lacagta ku siin maayo arintaas arin la yaab leh ayay noqotay alxamdulillah anigoo ah xildhibaan Faysal Shaacuud waxaan halkan ka cadeynayaa in oo maanta lacagihii oo gunada ahayd oo 3 bilood noo soo tuuray markii aan la igu soo tuuray hadana in gaari la igu qaaday meel igey la yiri mooshinkii ka laabo markii aan diidana lacagtii dib loo ceshtay ayaan sheegayaa kulay tabataan waxaan aragnaa in oo abood sheegasho ay tahay taasi dawladda federaalka waxa ugu baaqaya aqalka sare iyo aqalka hoose iyo madaxweynaha inay si degdeg arrinkaas ay wax ugu qabtaan anigoo xildhibaan Cali Xasan Cusmaan ka tirsan xildhibaanada koonfur galbeed waxaan nasiib daraa in galabtaan u fadhino inaan gunadeena ku gorgorto gunadana waxa soo saaray dawladda dhexe oo federaalka u soo dhiibtay nin ay moodayso inuu dawladda koonfur galbeed qowleysato meel la dhigay aan waxba isku falin xishoonina xataa waxaan nasiib daraa in dahabshil naftirkeeda bankigeeda iscaabaysa maanta oo nin xildhibaana lacagta ay u soo shubtay ay tiri mucaarad ma tiri muxaafid dib aan lagaaga celi waa nasiib daro haddaba waxaan u sheegaynaa in dahabshilay inaad koonfur galbeed damba ka shaqayn doonin haddaad aadi lahayd waqooyi haddii kale aday ku taalla ta kale wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka dhexe waxaan u sheegaynaa lacagtii aad u soo dhiibteen oo gunnada aad ugu talagasheen xildhibaanada iyo askartii aad ugu talagasheen haddii nin uu rabo inuu ku kala qaybo xildhibaanadii oo asiga u adeegsado noocyo kale haddaad u soo dhiibteen idinka naftirkiina far idinku jirta waxaan idinka codsanaynaa inaad tilaabo degdeg ka qaadaan annaga international communityna waa u sheegaynaa masajadii waa talle idin sheegay waa qoran yihiin ninka xildhibaanka laga ceshtay lacagtii inuu la fadhiyo laleeyahay haddaadan mooshinka ka noqonaynin lacag laguma siina Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle TV-ga Somali Cable magaalada Baydhabo xildhibaanada aqalka sare ayaa waxay su'aalo weydiiyeen wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya oo hortagay maanta aqalka sare sida uu ku soo waramayay wariyaheena magaalada Muqdisho Maxamed Ciise Maxamuud su'aalaha ugu badan ee la weydiiyay Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa ahaa kuwa la xiriiray lacagaha laga qaado xujayada Soomaaliyeed amaanka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho qorshaha wasaaradda kaga aadan gaadiidka dhulka iyo hawada
sidoo kale waxaa wax laga weydiiyey la wareegitaanka maamulka hawada Soomaaliya shirkadda gacanta ku haysa maamulka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Faafoori korarka dhismayaasha garoonka diyaaradaha ku dhex yaala iyo kuwa ku yaala hareeraha garoonka waxaana ay inta badan jawaabuhu ay ahaayeen kuwa ay ku qanceen senatarada aqalka sare ee baarlamaanka maadaama hadda aadan noo sheegin maaliyad qola la diyaaro iyo aeroboor kaloo hadda socdo aad leedahay xilli hebel oo dhammaanaya kanaan naho dhan marka kan aan ka dhigano aeroboor caalamiya waa ahaa ha lagu soo celiyo meesheedii dakhli intee leeg baa war ma ka haysaan iyo macluumaad sugan hawada Soomaaliya dhaqaalaha ka soo laga ururin jiray intee in leeg baa say inaga soo gaari jirto sidee loo qaybsan jiro sidee loo wadaagi jiray gole wasiir kula noqo ama ra'iisul wasaaraha u geey ama idinku isu taga waxaan jeclaan lahayn oo codsanaynaa muddada ka hadhay sanadka in arrintan meel la saaro waxaan kaloo codsanaynaa arrintan in laga qaybgeliyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo aanu mathilayno oo aan qabo in xuquuq badan ay ku leeyihiin 35 milyan wasiir maxamed cabdulaahi salaad ayaana waxa uu ka jawaabay su'aalaha ay weydiiyeen senatarada aqalka sare amniga aeroboorka sida aad la socotiin waxaa soo degay hay-ado ajnabi ah iyo kuwa Soomaali ah iyagoo isticmaalaya heshiisyo kala duwan oo dowladda ay la gashay UN heshiisyadaas ayaa runtii wax badan naga celinaya inaan sameeyno waxyaabihii aan rabnay inaan sameeyno airportka Muqdisho si uu international standard ugu soo laabto waxaa qasab noqotay in aan ka rarno runway-ga meesha diyaaradaha ka soo degaan 150 mitir hawadii waana lagu soo wareejinayaa Muqdisho ayaa la keenay